وحليديني وصاعدي رجواوين وحليدي كلاميرنكا حقي كتمد أراه مركي وفرانشيسكا توتي كبد عقد كفريسني أي أسوق قرين تاجرياش اللازيو يجو كسوق قري وحتى هي عدو جيجي نرشة بالسه وانو كسلامينا وانو كاحترامينا يجو له lifetime enemy says goodbye فرانشيسكا توتيو احترامك انت هلاك ناديجا يا عدو جيسكوين صدوقة كسبدي توتي waxaa dhacday seasonkii 2007-2008 horyaalka Talyaaniga in la dilay taageere kamid ah taageerayaasha Lazio laguna magacaabi jiray Gabriel Sandri taageerahaasoo ku caan baxay dhiijeenimo kaasoo caannimadiisa ay u goysay inuu la saaxiib noqdo qaar kamid ah ciyaartoyda Lazio oo uu kamid yahay ciyaartoyga loo yaqaan Lorenzo Silvestri hadda u dheelan naadiga Bologna waxaa dhacday sanadkaas iyadoo uu ka soo baxay shaqo dhiijeenimo oo habeen iyo maalin uu shaqeynayay barkeed ayaa isagoo aad u daalan ayuu tagas message soo qoraya saaxiibkii oo ah ciyaartoy Lazio ah wuxuu oranayaa shaqadu iima diideyso iyo daalku iima diidayo inaan idin taageero inaan idin ka hor istaago Curfanord Inter Milano labadoodaba waxa la yiraahdaa labada Ultrasbo Curfanord iyo Curfanord baa la kala yiraahdaa bas waxa lagu kala yaqaanaa midna waa caasimadda midna waa Milano waxa dhacday dabeetana isaga oo jidka ku soo jiray inay isqabsadeen qaar taageerayaal kamid ah kuwa Juve iyo kuwa Napoli dabeetana dhibaatadii iyadoo taagan ayaa waxa dhacday in taageerayaashii markii lagu kala kaxayn kari waayay baashan gaastan ka ilmeysisa iyo biyaha iyo waxa lagu kala kaxayn kari waayay in xabadda nool la adeegsaday taasoo kor loo ridayay balse isaga nin askariya ayaa target gareeyay kaas baana dilay Gabriel Sandri adigu muddo kadib askariga waa la soo qabtay waana la xukumay kadib cadeymo badan markii lagu helay aakhirkiina isagaaba qirtay inuu dilay oo waliba target gareeyay Gabriel Sandri si kastaba ahaatee taageerayaasha Lazio waxay ku celcelin jireen markii guul dareystaan iyo markii guuleystaanba waan ka xunahay maanta lama murugoonayo maanta lama farxayo Gabriel Sandri wuu joojiyay taageeranimadii Lazio laakiin wuxuu ku joojiyay si sharaf leh sababtoo ah isagoo doonaya inuu kooxdiisa taageero ayuu qadarku la kulmay oo adduunyadana nabadgeliyay kadib waxa dhacday intii aan askariga la soo qaban ayay dhammaan taageerayaasha kooxaha Talyaaniga oo dhani ay ku midoobeen in ninka loo doono cadaalad taasoo mudaaharaad badan sababtay ciyaaro badan oo horyaalkii Talyaanigu uu istaagay maxaa ku dhacday waxa wada dheelayay Olympico ku dheelayay Roma iyo Cagliari way istaagtay Milano waxa ku dheelayay Inter Milan iyo Lazio way istaagtay AC Milan waxay la soo dheelaysay Atlanta way istaagtay dhammaan horyaalkii waa la joojiyay wiigag taasoo ilaa la xaliyo ama taageerayaasha la dejiyo aan dib loo bilaabin horyaalka kadib markii la soo qabtay askarigii ayaa la aasay Gabriel Sandri aaskiisi waxa ka soo qayb galay oo ugu badnaa marka laga yimaado taageerayaasha Lazio taageerayaasha Roma 6,000 oo taageera ka soo qayb galay waa markii koobaad la arko taageerayaasha Roma iyo kuwa Lazio oo gacmaha haysta sida caadiga ana tabiya gas bay isku yihiin ismaak fadhiistaan xataa taageerayaasha Roma iyo kuwa Lazio hayaay hadaanad waxba ka aqoonin derbiyada Talyaaniga derbi Milano derbi della Mole ee Juventus iyo Torino derbi della Capitale ee Roma iyo Lazio waxba ma arag taageerayaasha Ingiriiska oo kala maahe halka yar hore inta iska soo fadhiistaan ciyaaryahanka taaban karaya kuwa shabag baa lagaga xidhaa wax kale iska daayay iyaga shabag lagu kala xidhaa passion iyo xamaasad iyo dhiig iyo geeriyo nolol bay u tahay kubadda cagtu marka Talyaaniga joogto kadib derbigii ugu horeeyay ee wada dheelaan naadiga Lazio Roma ama derbi della Capitale ayaa waxa dhacday inuu Francisco Totti soo qaaday ubaxyo kaasoo ka tacsiyeynayay geerida ku timi taageerayaasha Lazio iyo ninka ka baxay taageeraha qiimaha la agtooda ka lahaa ee ka baxay waa Gabriel Sandri kaasoo board uu ku sawiran yahay inta la soo dhigay garoonka kadibna uu ubaxyadii dhigay maalinta kadib taageerayaasha Lazio si kastay u nacab yihiin Totti ixtiraam badan bay u hayn jireen Totti marar badan la dagaalamay taageerayaasha Lazio kaasoo sheegay waxa rajeynaya inaad bii ku dhacdaan xataa waxa jirta xilli lagu ganaaxay Totti oo taageerayaasha intuu hortaga Lazio koorniyo biida aada inaad bii tagtaan baan doonayaa sidoo kale mar wuxuu yiri caaladaydu waxay bartay 3 shay inaan nacbaado waa shaydaanka iyo dulmiga iyo Lazio 3 shay ayaa nacbaabu leeyahay Francisco Totti leeyuna soo barbaariyay nacaybkooda iyagoo heerka nacayb kala gaarsiisan
ayaa haddana ay respect gareynayeen sababtoo ah xilliyada mawaaqifta rijaalka xilliyada ragga saacadaha ragga waaweyn waxaa jira waxyaabaha qaar aan laga kaftamin waxaa jira waqtiyada qaar xataa cadowgaaga nadiifta ah aad garab istaagi karto Francisco Totti markuu ubaxa sidaa u dhigay board bay usoo kala bixiyeen ay ku qoran tahay cadowgii noloshaa tahay saasay tahay haddana waanu ku salaamaynaa mar labaad waxay ku soo celiyeen boardkaas iscasilaadiisii maalintu ka fadhiisanayay maalintii ugu dambeeyay darbigii ugu dambeeyay laasiye la dheelay waxay usoo qoreen lifetime enemy says goodbye Francisco Totti waxaanu ku leenahay nabadgeliyo cadowgii noloshaa tahay saasay tahay waanu ku respect garaynaynaa bay leeyihiin taageerayaasha Lazio halkay ka dhici karaan qisooyinka noocaasi wadanka kulmiyay modelka iyo mafiyada wadanka kulmiye pizza iyo spaghetti wadanka kulmiye cappuccino iyo Romeo and Juliet horyaalka ragga رجال ضد الرجال طبيعي في طبيعي أي عسام شواريري إيطاليا سعودي عربية هاي نوكلا صارت دينتا يكوحها سعودية سببتي ويدي وررت قولية عربي دي يقاني الضوبة محاك بودا هذا يترجمة ضد عربي قلت خانا الله يركز السماية وين توقعنا يركن ماشي هايستي محمد بن سلمان الله هذا آد قال هذا وقدم بيه وتشعلني من كاس مقعيدا كوحها سعودي عربية أنا suggestion waxaan hayaa inuu ka bedelo oo ay ka bedelaan waa ka de kooxihii Malik Abdallah garoonkii loo oran jiray garoonkii Itixaadiya wata maxay arena iyo waxba loo bixiyay oo markii horeba ku bedande nimankaas oo Ingiriiska samaystay oo inoo keeno gaaladaas ay noo keentay ku bedda marka magacyada kooxaha ma yara cuntamayaan marka magacyo waxyaabo ku soo xasuusinaya diintii taariikhdeedii siiradii rasuulka ama aayaadka quraanka ama suuradaha ama xadiistaba kooxaha Sacuudi Arabiya markaad akhrinayso magacooda toos waxay ku soo xasuusinayaan qaarkood dagaaladii caanka ku ahaa siirada ama taariikhda rasuulka kaleey salaatu wasalaam tusaale xalay waxaan daawanayay koox la yiraahdo al-ahli waa kan kooxdan Riyad Mahrez iyo Firmino iyo u dheelaan Frankizio kooxdaas waxay la dheeraysay koox la yiraahdo Chandel magaca Chandel markaan arkay isla markiiba hore uma arag kooxda xalay ugu horeysay magaceeda waxaan xasuustay أبو جندل صحابي اللي ورن شري سيدو كلا وحن حسوستي معركة دومة جندل دقال كيلو ورن شري دومة جندل أفر شربي مسلمين تكون دقال من قوبتاس مركي وقدم بيستي خالد أيا كوسو قول استي خالد بن وليد وحاويان جندل مقال الله يقانو جندل وسعودي كوتالا أو إمك waxay ku taala koonfur galbeed Sacuudiga xilligaana waxay ahayd xuduudka u dhaxeeya Xijaas iyo Sham marka dagaalka Jandal waxay surursaday qabaayil si ay u dhacaan ama ay jidka ugu galaan safarro u imanayay marka Madiina oo Sham ka imanayay oo Xijaas imanayay xaruntii marka rasuulka iyo saxaabada kaleey salaatu wasalaam oo xilliga Madiina ahayd kadib dagaalkaas ciidan buu u diray qoladaas meesha isku urursatay si ay ula dagaalamaan safarradana ay uga soo badbaadiyaan markaan Jandal akhriyay isla markiiba waxay ku soo dhacay niyadeeda macrakatu duumatu Jandal taasoo kaliya maaha koox al-Qaadisiya la yiraahdo iyaduna jirta al-Qaadisiya taariikhda islaamka caan bay ku tahay dagaalkaasi waa dagaal caana waa dagaal adag buuha oo saxaabadii rasuulku galeen oo taatikaad badan oo ilaa hadda taatikaadkii dagaalka la galay wax lagaga barto ayaa dhacay waana dagaalkii lagaga xoreeyay Ciraaq nimanka Farisiyiinta oo xilliga haystay waana dagaalkii lagu dilay hogaamiye caan ay ku dhaadan jireen nimanka lagu yiraahdo Farisiyiintu oo Rustum loo oran jiray Amr ibn Aas baa markaa hogaaminayay ciidanka muslimiinta xilligaas dagaalkaas markiiba soo xasuusta markaan koox al-Qaadisiya la yiraahdo arko sidoo kale Uhud koox la yiraahdo jirtay iyaduna Serbiyada ku jirta iyaduna liiga Sacuudiga Arabiya waa laga yaabaa inay soo baxdo eeda timaado Uhud iyo Badr de waa dagaaladii ugu caansanaa ay haayeen bilowgii islaamka ay galaanba mala Badr baa ka horeeyay Uhud midna Badrna waa tii muslimiintu jabisay nimankii kufaartii Quraysh Uhudna waa tii muslimiinta la jabiyay ee waliba Khalid bin Walid buurta Uhud waxa loogu bixiyay uu ka soo galay dhanka dhabar jabinta waa dagaal caan ah isaguna Uhud kaasuu isaguna ku soo xasuusinaysa koox waxa jirta iyaduna tacaawun la yiraahdo tacaawun waa iskaalmaysiga wuxuu wada luqadda carabiga diintuna carabidii bay ku soo degtay magaranaysa dhulkana waa dhulkii barakeysnaayay saxaabadii rasuulka iyo nabigeena kaleey salaatu wasalaam diinta maanta aynu haysano halkii naga soo gaadhay weeyaan marka taariikhdii islaamka hadaad soo dhigato kooxaha Sacuudiga Arabiya magaalooyinkooda ay ugu magac dareen mid kasta waxay ku soo xasuusinaysaa taariikh wa tacaawanu cala albirri wattaqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيضا قرآن كاه لا يسكو كالميست وناقة إيو عبسيدة إلهي وحمانتها يسكو كالميستننا أي مركان تعاون أركبا توست إيهوري مادة بل هذا فيرسو تاسو كليا معها كوحب ذنو يوحد شراء لما قعا حتى سورة ده قرآن كفتح كون ريلابا تشرتا أو سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا لما قعا نصر با تشرتا قران كان مكان حرانا يمفنا ندن كل بصادو تقانو النصر كوحدن وحاود لوا كريستيانو رونالدو كريستيانو مقع كريستيان مقع كريستيانو وكريستيان أو مقع لقد برتغيسكا أو بالو دنبيسيا انت بدن لقد برتغيسكا ساسا مركا كريستيانو لويري ايوا كريستيان سيدو كلا رونالدو لقد انجليشكا رونالد ويان او كريستيانو نينكي لوغو مقع دره وخوا مدحويني mareykanka xilligu كريستيانو دشay رونالد ريغان نينكي لoo oran jiray ayaa loogu magac daray marka رونالدو ayuu luqada Portugiiska noqonaya رونالد ويان luqada Englishka marka كريستيانو luqada Portugiiska ooda ka dhigayso raacinaysa waa Christian weeyaan waana nin Kristana oo waliba diintiisa ku adag isaga Neymar raggan Brazilian ka Latin America waa niman diinta aad ugu adag weeyaan الهلال كوا ودير سافيتشيو متروفيتشيو وسربيان ونمكي maxaan ku dhahdayay aadka u gumaaday Checheniinta iyo Muslimka sidoo kale meelahan Balqaanka iyo Anatolia iyo dhulkan ka dagaalami jiray Crusadeskii la socday qoladii Byzantine la oran jiray aan iraahdo marka nimankaas baa waxay maanta u dheelayaan kooxa ku xasuusinaya taariikhdii Muslimka magacyadoodu ay ku xasuusinayaan أخدود بقى يدنا شرطة كحلنا ويدنا بيد عربي ده سعودي عربي أو بيد كل عضي أو ويكشري شرطة تهوى نركشري أخدود مركان أركبه واحد صاح استون أصحاب الأخدود صورة والسماء ذات البروج بقى كشكينسا واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود لمنكي أصحاب الأخدود أنتو قد كلجوا جري مسلمين تهاي اللي جوبي إلهي مركز شيء إلا كوي داوني إن عقاب متيسن دوران وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يقول داونا يا واحد نما كان مؤمنين تعالوا سمعين يا أخدود يدنا مركان صدا واركو مركب أصحاب الأخدود بيسوا حسوسه جيبي جاس صورة دي قرآنك يا حديثتي يا محاكرة تاريخي رسولك أي مقعيدا كوحا سعودي عربية كسوا حسوسين يعني ميو بدلي كرواي وبدلي كريا هبدلو يركن ماشي هايستي محمد بن سلمان لا aad buu nimanka gaalada u jeceliye nimanka reer galbeedka uu ka dambeeyaa yarkaasi si weyn buu waliba u jecel yahay ma wuxuu sameyn kari waayay waa kan bedelay garoomadii al-ittixaad oo kale iyo garoomadooda Malik Abdallah iyo Malik Hebel iyaba lagu naanaysi jiray imka waxa laga dhigay maxay arena stadio arena magacyadii markaa wax soo qaatay reer galbeedka kuwan kalena naga bedel oo waanu daawanay imka dawr Russian Saudi oo horiyaal kulul baad ka dhigto naare magacyadu naga bedel oo magacyo kala u bixiyo magacyadani diintii bay naxasuusiyaane kada qaar baa ii soo qoraya waa magaalooyinkiisa buu la baxayo de caadi maaha dhulkan barakaysan waa la wada leeyahay waa xaramka Ilaahay macid baa kaale cidi kaamale isaga imka xurto ku haysta lama kala laha dhulka Ilaahay waliba khaasatan dhulka barakaysan iyo dhulka mahsharka ee ardu Sham ee la isugu wada imanayo dhulka cidina ma kala laha khaasatan kolba ka haystunba marka laga la xisaabtama iyo xukunka marka jooga kuwaas ma marka xilliga jooga unba mar walba delle laakiin diinteeni bayna soo xasuusinayaan ee Sacuudigu ha ka bedel waaru turjumadee oo inta waa intii gaadhaayay qoraal ahaan ugu turjuma ku lyrics-ka Carabiga garanaya hadii aad time heshaan ama aad waqti u heshaan waayo markay wada dheelayaan bal adigu u fiirso al-Qaadisiya iyo Uhud markay wada dheelayaan waxaan labadii dagaal maxay isu keenay ama marka jadwalka eegta kooxo wada ciyaaraya marka akhrido al-Qaadisiya ama Jandal ama maxaan ku leeyahay Uhud iyo Badr baa wada waxaad moodaysaa inaad siiradii rasuulka soo gashay alayhi salaatu wassalaam marka naga taa Sacuudigu waa Carabi naga taa riwaayada oo ama bahashan kubadda faraha uga qaada reer galbeed baa iska leh aad bilyaniska ku bixinaysaan haddii kalena de waxa naga yaraa oo xaq diinta ka yara fogeeya niman gaala aba meesha u dheerayo wada macatabkii xidhan oo garoonkay ku soo galaan Neymar iyagoo dhag macatabkii xidhan dhulkii barakaysnaydna waa joogan marka arrinka anigu waan aad baan u dhaliilay idinkuna ra'yigiina muxuu idin leeyahay ciyaaray wada dheeleen Colombia iyo Uruguay oo ah
Latin America qaramada isreebreebka World Cup-ka 2026 ayaa gool iska dhalinaya Sanchez waa Colombia ayaa wuxuu toos ii soo xasuusiyay bal goolka dib ugu yara noqda ka kalena soo eega ka kala dama daawan laftiisa Andres Escobar uu iska dhaliyay 1994kii laakiin waxaan ku daawaday iyadoo laga sheekeynayo ciyaartoygaas goolku iska dhaliyay uu geystay in noloshaba la dhaafiyo nooceedii buu isaga dhalinaya Sanchez laakiin waxoogaa waa kala duwan yihiin xaaladda lagu jiro iyo waqtiga lagu jiro ayaa kala duwan Sanchez isreebreebkii World Cup-ka ayuu u dheerayay markaa qarankiisa Colombia Uruguay baana wada dheerayeen ciyaar xamaasadeeda wadata dagaal meeran oo goolka la iska dhaliyay faarta la soo eegayay oo 6 kaadho yellow card la qaatay oo inta ugu la iska daayay kaadhar xataa uu u digay garsooruhu ka badnayd oo 90ga wixii ka dambeeyay inta baraajaha keenaan Colombia ayaa haddana ka saddexaynayaan Uruguay iyadoo 2-2 ciyaar kulul oo hard ahayd haddaba sheekada aan u daleeyeen goolkan markaa aan idin soo qaatay wuxuu ahaa goolkaas uu iska dhalinaya Sanchez kubadda waxa waa la soo crossaya ciyaartoy Uruguay ayaa soo crossaya kadib wuxuu soconaya ka daafac kadib uu ku seexanaya kubadda block drive uu soconaya kadib goolkiisu ku hubsanaya nooceedii waana isla qarankii Colombia ayaa dhacaysa qiso naxdin leh oo 1994 World Cup-kii 1994kii marka qaranka Colombia ayaa ciyaarta koobaad waa laga badinaya waa groups marka ciyaarta labaad waa inay badiyaan qaran ahaanna way ka wanaagsanayeen qarankay la dheelayeen oo ahaa USA Mareykanka balse ahaa qarankii marti gelinayay kadib kubad noocaas oo kala bay ciyaartoy Amerikaani uu soo kubadda soo crossaya Andres Escobar ciyaartoygaas oo la dilay ayaa isoranaya kubadda blockare nooceedan buu isoranaya blockare isaguna uu isugu shubaya uu iska dhalinaya bal labada gool isu soo eega goolkan Colombia been ka dhaway Sanchez iska dhaliyay iyo kii Andres Escobar iska dhaliyay dabeetana Andres Escobar markuu goolka iska dhaliyo markaa sanadka waxay wateen qarankii ugu wanaagsanaa Colombia qaramadooda soo maray wateen oo Valderrama ba joogay hase yeeshee groupkay ku hadhayaan oo ciyaartaana marka laga badiyo saasay markaa ku macasalaameynayaan World Cup-ka iyagoo waliba rajo badan qabay sanadka inay meel fog soo gaadhaan balse Andres Escobar ayaa rajadooda ku ciyaaraya goolkana iska dhalinaya lagaga badin doono Mareykanku daafac buu ka xidhanaya haddaad ciyaarta highlights-keedii daawato waayo weerar badan bay ku hayeen Colombia balse goolkaas lagu kala baxaya kadib isaga oo markaa meel kalaaba jooga ciyaartoyga Andres Escobar ba markuu soo baxo waa la daba socday niman markaa assassinators oo nimankan wax dila ah ayaa daba socda markuu saa gaarigiisa u galo ayaa waxay ku dhufanayaan 6 xabadood bay madaxa kaga dhufanayaan waliba 6da waxay ku keeneen mataqaana marka goolka laga dhaliyo ayaa commentatorkii ciyaarta hayay ayaa 6 jeer boornaya gool booranaya moogtay iyaguna way u tirinayaan gool 6 bay madaxa markaa ka saarayaan Andres Escobar saasaanu markaa ku dhimanaya isagoo waliba caruur ka tagay waxay kamid ahayd sheekooyinkii ugu argagaxa badnaa ama naxdinta badnaa ee ka dhacda kubadda cagta taageerayaasha kubadda cagtu heerkaas ay gaarsiisan yihiin idinku xoogaa shaashadaynu ka daba caytana inagu iyo adiga arkay markuu ama ninka tababari isku khamaaro ama ciyaartoy 2 kubadood 3 kubadood ka cuno inta wixii aad tiraahdo iyo inta hoos u leedahayba kala badan laakiin Latin America ciyaartoydoodu khatar badan bay ku jiraan qaarkood waa la afduuban jiray haday qaranka la degaan saadirteed waxaad qaadaysaa nimo maafiyaan ama xil u qaadaysaa markaad u dheerayso qaran Latin Americana maafiyaankana xeerkoodu kuma jiro inaad khasaarto inaad loos garayso haddaad loos garayso noloshaada loos garaynaysaa saasay kugu daysay labada gool markaa kala xaalad weeyaan laakiin waxyaabaha cajiibka ah ee soo noqnoqda haddii imka Colombia ay ka hadho World Cup-kan wuxuu noqonayaa inta waxay goolkan iska shabahaan baan ku sheegaya horta waa World Cup kii hore waa World Cup lagu qabtay Mareykanka kanna waa isreebreebkii World Cup-ka oo lagu qabanayo isla Mareykankii adoo fiirso qaranku waa Colombia qarankan markaa aan ka sheekeynay labada jeerba qisadan ay dhacayso ama goolkan iska dhalintan iyo xaaladan ay dhacayso Andres Escobar ba iska dhaliyay waa la dilay saasaana qarankoodii uu sababay markaa guul darro tan lafteeda waa laga badiyay oo Uruguay ba ka badinaysa oo waxa uu ka qayb qaatay guul darrada qarankiisa waa isaga goolka koobaad ba iska dhalinaya Sanchez dhacdo noocaas oo kala tolo ma soo noqon kartaa haddii waliba qaranka Colombia ay ka hadhaan World Cup-ka sanadkan walow ay u eeg tahay inaanay ka hadhayn si kastaba kubadda cagtu
taariikhduna way soo celcelisaa way soo noqotaa waa cajiib wallahi goolka markaan daawaday goolkan kalena qisadiisa waan hayay ay isla markiiba goolkaasi niyadeeda kusoo dhacay xataa commentatorka baa dhawaa commentatorku miyaanu kubadda waxoogaa aqoon miyaanu ka haysan goolkan noocu isaga dhaliyay miyaanu xataa yara xasuusan isla qarankii inuu yahay miyaanu dib aanu u yara xasuusan weliba de waxaa laga yaabaa inuu isagu daawanayay kan macalliqee carabka ahan ku daawanayay wahayde isagu nuwin baa laga yaabaa inuu daawanayo wallahu aclam anigu anoon daawan ayaan laakiin taariikhda hayaa Andres Escobar waa taariikh caalamka kubadda cagta oo dhan aad loo hayo oo badanaa dadku ay og yihiin weliba macaashiqiinta kubadda cagtu ninkaas goolkaasi uu galaaftay noloshiisa Andres Escobar qisadii noocii u eg ayaa soo noqotay markaas Sanchezna waa inuu islaaliyaa waa inaanu kalaabiyada iyo meelaha Colombia isku tegin waa salaamu calaykum wuxuu caalamka dhan hadal hayaa inanta loo yaqaano Iman al-Khalif waa inan Algerianada dheesha feedhka ugana qayb gashay dalkeeda Olombikada ka socota Paris sidaynu wada ogsoonay waxa socda Olombigii ciyaari Olombiga kana socda magaalada Paris ee wadanka Faransiiska caadi ahaan waxaynu ognahay in Olombikada nin walba la yiraahdo maxaad haysaa wadan walba la yiraahdo maxaad haysaa wadan kasta uu ka soo qayb galaa ciyaaro kala duwan baa la dheelaa saddexda ugu horeeya ayaa bilada ku guuleysta waa gold bilada loo yaqaan dahabka silver oo bilada qalinka inagu aan niraahno iyo bronze oo ah maarta saddexdaas ayaa ku guuleysta marka waxa ka soo qayb gala wadan kasta ilaa Soomaaliya ku jirta maxaad haysaabaa deetana la yiraahdaa cid walba marka dad qualified ah ciyaaraha meesha laga dheelayo ayuu wadan waliba keensadaa nin waliba ceesaantii ceel keentay marka nin dabaasha yaqaana mid maxaa ku dhahay orodka bootinta basketballka footballka tenniska maxaan ku dhahday shiishka haday tahay tileebkii qaansada haday tahay tan xabada baastoolada haday tahay qoriga everything sida darteed nin waliba wuxuu haya ayuu kaga soo qayb galaa Olombikada hadaba dhanka feedhka ayaa wadanka Algeria dumarka waxa uga qayb gashay inantan maanta media oo dhan hadal hayo waa Iman al-Khalif waa inan jirkeedu u sameeyay sida ragga hatta wajigeedu testosterone ku badan sida darteed adayg badan oo kii raganimada abay leedahay dan waxay la dheeshay inan Talyaaniga oo Carini la yiraahdo Carini 46 second gudahood ayay ku dardartay maamka kaga lumisay wallahi laba ay ku dhufatay Carini waxay ku leedahay wixii ugu dhacay wax gabadhi soo tuurtay moohayn feedharkii ugu dhacay feedhar gabadh ridaysa may ahayn deetana meedii reer galbeedkuna markiiba inantoodii oo munaafiqiin reer galbeedku waa hypocrisy western hypocrisy waa munaafiqiin weeyaan reer galbeedku way la yaaceen oo meel walba waa ku soo dhigay nin baa soo galay tartankii waa transgender waa kuwan isu bedelaad dumarka raggan dumarka iska dhiga weeyaan ee qalinkii waxa isku sameeya waa nin waxani hada hadii la reebi lahaay Carini ku tuman lahayd gabadha Talyaaniga inanta Algerianada cidaba may hadal haysanba markay dardartay ay oyday moogta maamka ka lumay meel ay maraysay kala garan weydo hadda ku darso inantan way la tababaratay oo maray Talyaaniga joogtay gabadhan Algerianada tan kale isdilayeen meel bay ku wada tababaran jireen waxa kale si fiican baan isu garanaynaa saas darteed markay erayga tiri mabay sogeynba waa tan tiri waan ka cudur daaratay markii dambe soo reebay tiri waan gaf baan sameeyo meel baan uga dhacay inantaas saxaafadii laakiin Europeanku markiiba la yaaceen ha laga saaro ragga transgenderka ah Olombikada maxaan ku dhahaa in dumarka la dheelaan maaha Carini waxay doonaysaa cadaalad balaa sheekadoodii yareeyay markii iyagu doonayaan ay soo dhisi jireen weeyaan moogtimka caalamku isfahansan yahay cilmo dhageysato tii hadaba aabaheed baa soo hadlay Iman al-Khalif oo yiri inantaydu waa gabadh hadduu nin yahay anu Algerian baan ibuur wadankayga transgender ku wuxuu ka yahay waa aabaha dhalay ilmo nina oo gabadh isu bedelay iyo tabarra minhu wuxuu dhaxdaa saas uu inkiraa uu dafiraa wuxuu dhaxdaa maan dhalin hatta magacayga sheega ma oran la buuri hadday nin tahay ilmo aan dhalo nina oo gabadh isu bedelay anaaba sheegteen buu kulay waa inantaydii sawirayado yaryar baa la soo dhigay marka hore nin iska shabahaysay way iska dhacdaa inagaba kuraye iyo wiile iyo waa hablo loo bixin jiray waa jireen oo yara testosterone raggu ku badan yahay testosterone raggu baa inantan ku badan hormoonada ragga labnimada ayuunba ziyaada gabadh inantan Iman al-Khalif
waxaan xasuustay sheeka Soomaali laba dumar oo jaar ah oo labadooda guri jaar yihiin ayaa mid baa ta kale ka adkayd dabeetana kii qabay tan kale tan dee laga adag iyo Ferrari ah ee ordaysa ee fulayada ayuu ku yiri waxaan ku sheegaa caawa laba xijaab oo isku eeg noo soo qaad soo doono gabadho guriga soo gal dabeetana xijaabkii buu isna gashaday deetana xaaskiisii baa tii kale soo caydo deelanta kale waa gabadha ka adkaatay way soo erigatay dabeetana markay soo erigatay buu bedelo isaga deetana markiiba dhabalku uga qaado uu dirdiray markuu dirdiray bay dabeetana gabadhii ay maamkii ka lumayo tii kala soo weydaarato tii kala marka gabadhii baa fuushay xaaskiisii ayaa fuushay markuu u legday dhowr ku dhuftay jiheeyaa ka lumiyay kadibna markay kortayba dadkii isugu yimaadeen oo la kala qabto xaaskiisii baa laga soo kiciyeeyo isagina wuxuuba ka qayb qaatay markiiba intuu xijaabkii soo tuuray dadkii kala qabanayay gabadha way taqaanee waxay tiri wallahi inaanay iyadu dilin aniga wixii dilay nin buu ahaa aniga wixii idilay iyo feerarkii ku dhacay meehen heblaayo oo wax kale isugu sheekayno hadee iyadoo ku saaran baan noo ku nibo kaa kicin maxaa kale adiga baan waxsaan ku falnay may baad deetana soo istaagtay marka noociyo kale noqoto markii laga adkaaday ay reer galbeedka yiraahdeen wixii gabadhan dilay kariini ka oohiyay way ooyday moogtay meehen gabadhan nin gabadh iska dhigay weeyaan bay deetana yiraahdeen imaam khalifa abeed waa soo hadlay uu sheegay inay inantiisii tahay iyadu way hadashay waxay tiri aad baa lay dhaleeceeyay aad baa lay dhaliilay way ooyday shalayto mid kale waxay ka badisay Luka Hamori la yiraahdo Hungariana oo iyaduna Instagram-ka uga sii hanjabaysay taana dardarkii shalay u saartay dhowr iyo 40 second bay yara ku qaadatay dhulkay ku tuurtay dabeetana reer galbeedku way yaabeen inan iyagii iminka galbeedkii wadamada westernka raganimadii baaba ku sii yaraanaysa raggoodii baaba waxaan ku waa kuwa transgenderka midho noqday deetana inan raganimo leh markay arkaan waa la yaabayaanba iyagii bay ka adadkaatay baaqi u celisay dabeetana way la yaabeen waxay dhahaan waxaan waa nin isku soo duuduub inanta aad baa media looga dulmiyay haday Twitter ka tahay haday tahay Facebook haday tahay social media oo dhan aad baa imaan khaliif saxaafadda reer galbeedku ay uga dulmiday taasoo ku tilmaantay inuu yahay nin transgender aan ahayn shaqana ku lahayn oo ay tahay gabadh aabaheedna soo cadeeyay sawirro iyadoo caruur la soo dhigay ku darso oo kariinidan lahayd Talyaaniga ah ee lahayd wixii dilay nin buu ahaa way meel bay ku wada tababaran jireen Talyaaniga xilliyada kamid ah shalayto ayay hadashay iyadoo apologize bixisay jireen inta waan u gafay mabaan sugeynba meelaan ku maqnaa xoogaa maamka ka yar luusanaa moogta deetana waan ka raali gelinayaa iyaduna lahayd Olympiguna warqad cad buu ka soo saaray inanta lagu gafin test bay martay inay gabar tahay dhaqaatiir baa eegta hormoonadooda la eega xataa meel walba la eega soo saamowd waa la hubiyaa inay gabar tahay inay nintay waa la kala hubsadaa sababtoo dunidii wixii baa isdhex galay moogtay wixii baan imika la kala garanayba heerkaasi gaalayna gaarsiiyeen gaala haddii dunida u taliso waa fasahaad iyo baaba sidaa darteed inantii imaan khaliif bronzia ayay imika ku guuleysatay bilada maarta ah maadaama ay semifinal u gudubtay iyada taa way leedahay haddii la soo reebo semifinalkii haddii ay badisaba berri toole salaasada ayay 10 habeenimo 10 subaxnimo aan u malaynaya ayay dheelaysaa ciyaartii semifinalka inay goal soo qaado ay markaa dalkeeda ay rajeynaysaa caalam islaam iyo caalam carab oo dhan aad baa taageero looga muujiyay iyo waliba afrikaankii baa xataa la socdo leh inantu waa derbi Milano haddii aanad xalay daawan derbigii Milano carabtu waxay dhahaan laqad khasirta nisfa cumrigaaga badhkii ayaad khasaartay waxaynu daawanay derbi ka soo luntay derbiyaadkii min zamaan kaasoo uu ku tiiqsanayay
ama uu tacliiqinaya Faris Ciwad xalayto koobuna iyo Faris Ciwad iyo derbi Milano saddexda haddaad isla heshay way isugu ka dhamayd waxba kaamay dhinayn derbi waxaynu daawanay ka soo baxsaday derbiyadii hore aynu naqaanay xilligay Milano u dheeli jireen waaweynkeedii Shevchenko, Kaka, Costa, Nesta, Maldini, Cafu, Yabstam, Andre Pirlo, Gattuso, John Dal Tomason, Inzaghi iyo raggii la midka ahaa ee dhanka kale internet dheeli jireen waa Christian Kifu, waa Cordoba, waa Materazzi, waa Zanetti, waa Toldo, waa Julio Cesar ee dhexdoodu Alvaro Recoba iyo raggaasi joogeen weerarkooduna kuwii ugu dambeeyay haddaan kuu soo qaato xilliyada ugu wanaagsanaayeen Adriana iyo Samuel Eto'o laftiisa xilligay tribalka qaadeen ee ninka lagu yiraahdo Diego Milito xilliyadii derbiyaadkii aynu xilliga daawan jirnay Zlatan Ibrahimovic oo labada derbiba u dheelay Arne oo labada derbiba u dheelay Pirlo oo labada derbiba u kala dheelay labada kooxoodba ayaynu caawa ama xalayto ciyaartii dhacday aynu xasuusanay derbi Milano oo ay ku gacan sareysay AC Milan oo 5 game oo xiriira derbiga laga badiyay ayay taageerayaasha Inter Milano soo qaateen warqad yar ku soo qorqorteen iyagoo leh derbi 5 xiriira baanu badinay horey u dhacday oo 2 jeer hore Milan samaysay oo 5 derbi oo xiriira ay badiyeen saddexda jeer bay dhacday mar Inter samaysay oo markii ugu dambeysay iyo 2 jeer oo AC Milan samaysay ayaa waxay ku soo qoreen xidigtii labaad iyo wax la mid ah halka Kurfasuud Milano iyaguna ay soo qaateen weligood bay intay faanaan ayaa dabeetana magaalada Milano casaan aanu ka dhigi jirnay ama red Milano is red xalayto Milan red bay noqotay Inter ciyaartooydeeda tacbaan iyo daal baa ka muuqday mooyi Man City ayaa soo daandaamisay ma garanayo daanaguba Liverpool baan la dheelnay oo waliba 3 noo dhiibtay hase ahaatee Inter macaawa garoonka Intertii ay naqaanay awooda badnayd may soo gelin waxa soo gashay AC Milan waxaad moodeysay waliba ciyaarta haafkii dambe inay dhan kaliya kubadda laga dheelayo Milan Rafael Leao mooyaane inta kale 10 on 10 bay hayeen especially yarka la yiraahdo Tijani Reinders oo qaatay man of the match-ka yarkaayr waa master pass yarkaayr waa very talented weeyaan Alkamar ayaan anigu ku garanayaa markuu joogay Milan intaanay la soo wareegin qaranka holana waaba ragga imka dhexda u wada sidoo kale Tio Hernandez kabtanki waa ciyaaray war iska daa wax kale Emerson Royal oo aynu garanayno ayaaba caawa kubadda dheelin kasto kubadda koobaad ee Inter Milan ay dhalisay Breccia Di Marco dhaliyay isagu qaladka lahaa oo isagoo ninkii xidhay uu ka soo carar u yimid dabeetana Lautaro Martinez oo 2 nin markii horeba xidheen oo hayeen Tomori oo ka saari lahaa Di Marco offside gelin lahaana uu ka saaro iska sii dhex taagnaa isaguna goolka hore qaladkaas uu ku yimi ka koobaad Milan ku horeysa Pulisic Captain America ninkaasa ku farayareystay kubadu waxaba soo dhax qaaday oo dabeetana iyadoo sii dhimanaysa deetana uu sii raaciyay Captain America dhiigu ku shubaya Chelsea waxaan leenahay thank you ciyaartooy wanaagsan ayaadna siiseen oo ku tamarino oo Pulisic waqtigan la joogo ugu horeeyo tuuriyooyin badan oo la isturtuuray ciyaarta derbida oo kamid ahaa ninka lagu yiraahdo Tom Abraham oo gool uu siiyay yarka Tijani Reinders leeyahay baas ajiiba uga saaray meel khatara ayuu iska dayacay sidoo kale Rafael Leao waa dayacay Nuuxo Kafur isagu markii iyadii ciyaartii 2 gool baaba soo goolka saddexaad dayacay ugu yaraan 5 way ku badin kareysay haday jaanisiyada iyo fursadaha ka faa'iideysato Milan ciyaartii xalayto dhacday ee derbida ahayd goolka labaad wuxuu yimid daqiiqadii 89 ayuu yimid yaa dhaliyay Matteo Gabbia yarkaasi positionkiisu waa qasab in la siiyo wali Pavlovic lama haysto yarkan cusub ee la keenay Tomorina waa iska yara mushaki waa in nin degani la jooga Tomori season-kii aan horyaalka qaadnay Tomori 2 nin baa la joogay oo 2 nin degan yihiin waa Romagnoli ninka imka Lazio wareegay kabtanka uu ahaa Milan iyo sidoo kale Simon Kjaer oo isagu season-kan isaguna ka tagay kooxda Tomori haddaad ka garab ciyaarsiiso mid kale isaguna dafdaf meedhana labaduba way isla waalanayaan saasay isula wareegayaan oo isaga waa shaki meedhan Tomori moogto waa mushaki dabeetana wuxuu baa u khayiraya waxbay eryanayeen buu koodhanaya laakiin ciyaartay degan oo daafaca haddaad agstaajiso markaasay Tomorina kubadiisu soo baxdaa iyo daafacashadiisuba Matteo Gabbia ninkaas waa Talyaaniga kaliya ee ciyaarta ku jiray dhanka Milano xagan kale Inter wada Talyaani bay ahayd ee dhanka Milano
talyaaniga kaliya ku jiray buu ahaa markii hore David Calabria kii kabtanka ahaa ayaa ku jiray kaas waa kii dhaawac ku maqnaa ninka lagu dhahay Mattia Gabbia waa ficil midhan ilaa ciyaartii Liverpool baan lahaa maxaa loo soo qadimi laayay ugu dambeyntii maan caawa waa lagu soo bilaabay qadin kelmadda qadin xageegan waliba Hargeysa khaasatan waxaan u isticmaalnaa marka lagu soo bilaabo waa iska carabi waa qadim taqaddum oo kale kelmaddu halkaas ka timi la soo qadimay kelmadda dhowr qof oo igu fahmi waayay baan markaan page-ka wararka soo dhiga arkay halkaana inay diira waadixiyaan jeclaystay waa lagu soo bilaabay caawa ama waa la qadimay kolba saad u fahmayso Mattia Gabbia ugu dambeyntiina isaga goolka guusha u dhaliyay Milano kana dhigay magaaladii Milano Strad oo baryahanba midabka buluuga haystay Mattia Gabbia ciyaartoyda Talyaaniga ah Milan hadii laga waayo way u dhutsaa nin ficilka kaliya ee ku jiray ayuu kooxda ahaa Mattia Gabbia isagana soo gabagabeeyay ciyaarta hadaba derby Milano hadii aan xalay daawanin kubad ma daawan season-ka dhan ee English Premier League hadii la isku soo wada geegeeyo ciyaartaas ka qiimo badnayd qaar baa waxay ku doodaan ma taqaanaa Talyaaniga waa dhintay Talyaaniga bari buu ahaa saxaafadda anigu xareera ma aqaano qofka saxaafaddu hagto ee ciyaartoy saxaafaddu wadato ay laacib uga dhigto horyaal ay wadato wax kale uga dhigto anigu meehi indhahayga wax ku gooyaa derbidii aan caawa daawanayay waloosan inaanan horyaalka Ingiriiska inta imka u socday iyo inta socdaba mooyi aanan daawanin ciyaaru dhiganta ninkii daawanayay u baana ka sheekeyn kara Talyaaniga horyaalkiisi waa dhintay iyo wax la mid ah waxa waa lagu meeraystaa moogtay Talyaanigu hadduu horyaal dhintay yahay 5 boos oo Champions League lama siiyeen iyaga Germany labadaas medio ma bumbuniyo wuxuu medio aad u bumbuniyaa Ingiriiska maxaa Ingiriiska 4 koox Championka uga soo qayb galeen adigani daawanayaan ku weydiiyay sabab may Talyaaniga 5 ciyaar kooxood koox dheeraad loo siiyay adigan daawanayaan ku weydiiyay hadduu yahay horyaalka Talyaanigu markaa imka horyaal ay ka jiifto xilliga ka jiiftay ayuu boos ka xoogay horyaalka Ingiriiska iyo ka Isbaanishkaba ay qaadan kari lahaayeen ay ka qaadeen dhibca la tirsadaa kooxaha Yurub dhibcaha ay shaqeeyaan Talyaanigu season-kii hore 3 kooxood baa final ku wada joogeen koobabka Yurub iyaga ka dhibca batay Isbaanishkii iyo Ingiriiskiiba Jarmalka iyo Talyaaniga ka dhibca batay saasaanay ku qaateen boos dheeriya marka horyaalka ka wanaagsan waxay ahayd inuu ka qaado booskaas oo 3-4 kooxood ay u tartamaan mid kalena waan ku xasuusinayaa horyaalka Ingiriiska waqtigan la joogo 4 sano u dambeeyay waxa qaaday oo xiriir Man City Talyaanigana 4 kooxood oo kala duwan baa qaaday madsa uga warqabta waa Milan waa Juve waa Napoli waa Inter 4 kooxood oo kala duwan ayaa qaaday horyaalka Talyaaniga 4tii horyaalay ugu dambeeyay halka Ingiriiska hal koox qaatay Ingiriisku waa Man City taa kugula murmi maayo koox kale aniga ima soo raacin kartid waqtigan la joogo waa kooxaha kale Yurub baa laga arki lahaa haday joogaan oo dhibcaha u shaqeyn laayeen English Premier League waxaana u dhicin laayeen booska shanaad ee la weydiiyay la siiyay Jarmalka iyo kooxaha Talyaaniga Italia ya habibi hiya Italia Isam Shuali sidoo hore idin ku sheegay Talyaanigu waa Talyani dawri ما فيش تنفس اصطناعي ما فيش أكسجين رجال في ضد الرجال طبيعي في طبيعي بوري هريال كاس أو حتى أكسجين هداد قشطو نقص كوكو دقيو نيتشرال رجي الرجي سليا عيارتي حالي الدربي دا كوكو فيلم صالح فورسا ميلان تاريخ دو ويسون نقطة ويسسوع لسا تاريخ دو محل إنه إلى تاريخها آخرية سي أنا دقو وريرين دوني دا وحن كدع يمنك هذا تاريخ هايسو waxaad ogaanaysaa waxaan dhacayaa inuu yahay wax horeba u dhici jiray oo soo noqnoqonaya iyo siday dunidu isu soo badbadashay qarniyo ayaad marka taariikhda aad akhrido aad fahmaysaa waxaan uga daleeyay caawad kubadda cagta taariikh cajiib ah ka soo noqotay waa Hernan Crespo iyo Harry Kewell wuxuu ahaa ciyaartoy Australian oo u dheeli jiray naadiga Liverpool wuxuu kamid ahaa kooxdii Liverpool labadii 2005 Istanbul ku qaaday Champions League kana qaaday naadiga Milano wuxuu kamid ahaa kooxdii Liverpool waa Traore waa Vinan waa Aaron Riza waa Dudik waa Gerrard waa Jimmy Carragher waa Sam Haybia waa maxaan ku dhahdayay Smisser waa Steven Gerrard kabtankoodii alqaa'id wal kabtan waa Dimitri Hamann kii Jarmalka ninka ciyaarta bedelay markuu bedelka ku soo galay
waa Milan Baros waa Harry Kewell kan imanka aan ka hadlaya sheekadiisa waa kooxdii Xabi Alonso waa kooxdii Liverpool ayuu kamid ahaa ee 2005 mucjisada ka dhigtay Istanbul ciyaartaas maba ilaawaba anigu dhowrkii sanaba mar baan soo boosti gareyn jiray waxaan xasuustaa 2010kii anigoo Facebookgayga soo dhigay oo ciyaarta baroordiiq ahaan u soo dhigay 5 sano kadib ayaan soo dhigi jiray ciyaartaas maadaama aan taageero Milan ahaa kaabus bay ugu noqotay si kastaba ha ahaatee taageerayaasha Milano waxay idhaahdaan Istanbul Athens baa ka dambeysay waa laba wadan oo isku xiga Turkiga iyo Greega waa laba magaalo oo labadooda wadan isku xigaan waa caasimada Greega Athens iyo caasimadii hore magaalo ganacsiga Turkiga ee Istanbul ay labada final ka dhaceen labada final waxa isugu imanaya Liverpool iyo naadiga AC Milan oo labada naadiba championka laba naadi oo taariikh la ku yihiin haddaba taageerayaasha Milan waxay ku qanceen in 2007 ay ka aarsadeen kooxda Liverpool dabeetana waxa jirta oraah caana oo Talyaaniga waliba magaalada Milan la isticmaalo oo tiraahda Istanbul Athens baa ka dambeysay waa macni libin lagaaga dambeeya libin maaha haddaba Hernan Crespo kamuu mid ahayn ciyaartooydii aargoosatay ciyaartii dambe Athens ka dhacday way ciyaartooy badan baa aargoostay oo Cafu kamid yahay oo Kaka kamid yahay oo Nasta kamid yahay oo Maldini kamid yahay oo Dida kamid yahay oo maxaan ku dhahaa Ambrosini kamid yahay oo Birle kamid yahay oo Seedorf kamid yahay oo Inzaghi kamid yahay adigu ciyaartooy badan ayaa dhacdadii dambe joogay oo aargoostay balse Hernan Crespo marka horeba Milan amaah buu kula joogay Chelsea baana amaah ku soo siisay oo marka hore iibsatay saasay tahay seasonkii dambe way u diideen in Milan siiyaan 2005 markuu dheelay 2005 wuxuu ahaa xidiga markaa championka tuurta ku sidaba kooxda Milan ayuu ahaa sababtoo ah Man United home iyo away buu kaga soo dhalinaya ciyaartu sida oranaya markuu goolka ka dhaliyo Old Trafford uu kaga dhalinaya San Siro uu kaga dhalinaya min gool iyo Everton Milan ku soo reebaysa seasonka Man United finalkana laba buu ka dhalinaya Liverpool goolka koobaadna Maldini baa dhalinaya waa goolka Maldini waa goolka ugu dhaqsaha badan leh semi final la dhaliyo waxaan jeedaa final la dhaliyo Champions League goolka Maldini iyo laba Crespo ah waliba goolka dambe Crespo wuxuu uga tuurayaa Kaka meel fog waxa la yiraahdaa waa goolka assistiga ugu dheer ee final Champions League la bixiyo buha ayaa la yiraahdaa assistigi Kaka meel fog buu uga tuurayaa assist aad u qurux badan weeyaan kadib saddex yeebar markay ku dhamaa halfka hore ku dhaco halfka dambe wixii dhacay baa dhacay Gerrard baa madax dhalinaya ka labaadna Smith baa dhalinaya ka saddexaadna waa ka Gattuso recorda isku galaya dadana Alonso intuu kubadda ku laado diida soo tufo dabeetana uu ku celinayo Alonso uu dhashanayo si kastaba ha ahaatee Crespo caawa wuxuu ka aargoostay mid kamid ah askartii Liverpool ee habeenka jabisay Milano Harry Kewell waxa weeyaan tababaraha naadiga Yokohama Hernan Crespo waa tababaraha naadiga Al Ain Al Imarati labadoodii baa iselaya caawa oo mid waliba koox wato final championka Asia dabeetana Crespo ayaa 5 u dhiibay caawa waliba aan kuugu dara xisaabtee championka Europe mooyaane championada kale oo dhan home iyo away baa la dheelaa championka America Latin America oo loo yaqaan Libertadores waxa la dheelaa finalkiisa home iyo away championka Africa oo caawa ay qaaday Al Ahli Al Masri ay ka qaaday Trichy Tunisi waliba Al Ahli oo ah kooxda dunida la yiraahdo waa kooxda ugu koobabka badan leh ayaa caawa qaaday waliba gurigooda ku qaadeen guriga horena ever buu ku soo dhamaaday marka home iyo away baa la dheelaa ka Afrikana ka Asiana home iyo away baa la dheelaa marka ciyaartii hore waxa soo badinaysa oo labiyo gool ku soo badinaysa naadiga Yokohama ee wato Harry Kewell ciyaartooygii hore ee Liverpool ee Australian-ka ahaa kadib caawa ayay Al Ain iyo wada ciyaarayaan lugtii dambe oo Imaaraadka lagu dheelaya maxaa dhacaya sham bay u dhiibayaan yarka yar la yiraahdo Sufyan Rahimi kaayir waa khatar weeyaan waa ninka Al Nassr soo reebay waliba Cristiano waxa la yiraahdaa Portugiiskiina World Cup-kii buu ku reebay championkiina Al Nassr buu ku reebay yar kaayiri Al Hilal noo soo reebay Al Hilal iyo Al Nassr labadii kooxood ee Sacuudiga ay billions-ka la geliyay labadaba isaga reebay caawana finalkii uu qaaday recorda lagu galaya casaan baa lagu qaadanaya gool aad u qurux badan buu dhalinayaa Crespo ka tababara ahaan wuxuu dheelayaa kubadaan caadi ahayna dad kubadda Al Ain Al Imarati daawato caawa wuxuu ka aargoostay Harry Kewell
dhacdadii 2005 championku ka qaaday ayuu kii Asia isagoo tababaraha kaga qaaday maadaama aanu ku jirin kooxdii Milan ee ka argoosatay 2 sano kadib seasonka ay Liverpool ka qaaday 2007 macallin Ancelotti hadduu Champions League qaado waxa macallin iyo ardaygii ayaa labada qaaradood Champions League soo kala qaaday waa Crespo iyo Don Carlo Crespo al-aqrab baa looran jiray Scorpion ama dibqalooca bahalka la idhaahdo madaxiisu kaasoo kale waa sumbuha madaxiisu ninkii soo daawaday waliba ay maalmihii Barma Calcio berigi Barma Sebastian Veron maxaan ku dhahday Lilian Thuram Cannavaro Buffon isaga Chiesa yare Juventus aabihi Dino Baccio Roberto Baccio Dino Baccio berigi Barma ay shidnayd ee qaaday waliba Europa League ay ahayd naadi kamid naadiyada Yurub ugu wanaagsan beriga Crespo ninkii soo daawaday amaba Inter ku daawaday amaba Lazio ku daawaday amaba iska daa wax kale Milan 2005 daawaday uu garanaya how much uu ninkaasi Scorpion ahaa ama dibqalooc ahaa ama sun ahaa madaxiisu si kastaba ahaatee caalamka maanta tababaranimada waxa ku soo biiraya da'yar kubad cajiib dheelaya oo waliba u horeeyo macallin Xabi Alonso Glory Man U the Red Devils shayaadiin al-humr ama shayaadiinta cascas markoodii 13aad ay qaadeen FA Cup-ka Manchester caawa casaan Manchester is red caawa maruu Cisaam Shuwaali ka sheekeynaya Manchester hadaladii ugu qiimaha badnaa ka bixiyay mataqaana Manchester wuxuu oranayaa Man United ukarrirha lilmarra almilyon huwa min diinati al-andiya التي دخلت خانة الأصادير بورنايا مانشستر يونايتد waxay kamid tahay buu ku leeyahay naadiyada galay khaanada asaadirta ama legendiska wuxuu ku leeyahay lam ta'ud andiya kabira wa caalamiya kaliya ma aha naadi weyn oo caalamiya buu leeyahay bal andiya usطوريه bay ku jirtaa buu ku leeyahay naadiyada legendiska ah khaanada asaadirta ay ku jiraan andiya usطوريه weeyaan buu leeyahay waa naadiyada waxay kamid tahay legendiska ah الدلع والدلل يا مانشستر بوليه مانشستر يونايتد وإناد معنيه الدرينتا كولين مادام تاجرت مانشستر يونايتد تهي وإناد فانتا بوليه هي سببته محي تهي يستقص هذا الكيس سوى تبوليه بطولة ضاعت ويش يعني حداد كوب ويدو حتى سيسن كانت كوب ويدو محي كدق انت بكوليه محي معنى السماينسا انت كلك بطولة اديك جبي اهم بكوبة أنت بحد ذاتك بطولة بوليه أديك لفتقاقة مانشستر مركا تهي أياد كوب تهي بوليه تاقيرا مانشستر ما أنت مانشستر تاقير تباد كوب قادي بولي أيو جيدا يدا كوب بوليه أنت بحد ذاتك بطولة نوينو باقي مها مانيو قرانيا قلوري مانيو نكيانو كسو قارني حليدي ARTدا يا عدنان محمد الحمادي يا فان نستروي يا روي كين يا ديفيد بيكهام يا بول سكولز يا إيروين يا maxaan ku dhahaa Ferdinand iyo Gary Neville iyo maxaan ku dhahdaa iska daa wax kale hatta keydkooda ayaa xilliga kooxaha xilligaas iyo iminkaba Manchester United saaxadda kubadda cagta kamay bixin seasonkii ugu liidatay wata koob qaadaysa wata derbigii Manchester badinaysa wata maxaan ku dhahdaa dabaaldegaysa wata le Manchester is red markuu ku leeyahay cisaamku anta bixad daatik butula adigaaba kooba why not iyadoo ay tahay kooxda localka Ingiriiska marka la joogo localka koobabka localka ta ugu badan ay qaaday Man United waa kooxda saddexdii ciyaartooy ee ugu da'da yaraaya FA Cup final dhaliya ay ka soo jeedaan iyada 2004 ka soo bilow Cristiano Ronaldo Millwall ciyaartii 3-1 inay ku dhamaanaysaan u malaynaya maalintaas waa maalintan horena idinku sheegay ee noloshayda markii koowaad arkay tababare bedel ku soo galaya oo isna tababara Dennis Wise ciyaartoygii hore reer Chelsea oo markaa Millwall tababaro ahaa ayaa bedel ku soo galay coach player ama labadaba u lees garaysan kooxda inuu manager yahay iyo inuu yahay player sidoo kale waxa ku soo xigay Garnacho iyo Maino oo caawa laba gool dhaliyay waa ciyaartoyda daayirtay 20 jirka ka yar ee teenage oo kala ah Man United waxay soo bandhigtay ciyaar ay ku soo tala gashay inay koobka qaado haddii ciyaarta dib ugu yaro noqono shax aanan weligii is oran Dinhaag ku soo galaya ayuu caawa ku soo galay caawa Dinhaag khamaar buu dheeray mooy maskaxdaas caawa xaq ka keenay Dinhaag seasonka in marna liitay marna yara kacayay waynu garanaa waliba ciyaarihii ugu dambeeyay ay ka jiiftay caawa wuxuu ku soo galay shax cajiiba caawa Bruno Abu Sagal soo dhigay
sagaal fake oo waxba ka jirin ayuu Bruno ku soo qoray shaxda markii saa loo soo dhajiyo Bruno sagaal buuha cajiib waxa inta dheereed caawa inay kooxda Manchester United daafaceed iyo dhexda lane-ka daafaca defense lane-ka ay isku xidhnaayeen sidoo kale daafacu isku xidhnaa kubadda labaad oo kale markay dhalinayaan wallahi waxa weeyaan 10 kubadeed baahed kubaddu waxay ku soo dhimanaysaa marka hore oo ay ku soo reebayaan goolkooda dhanka goolahooda Manchester dabeetana kubadda isla markiiba waa la isu tuuraya Rashford baa bahasha gudbinaya waxay counter attack bay dheelaysay Man United Rashford baa kubadda u tuuraya Garnacho meel fog uga tuuraya Garnacho iyo marbay soo wada dhaqaaqayaan Bruno Fernandes iyo Maino way soo daba socdaan hal mar bay ka soo wada baxayaan dhanka goolka markay kubadda soo reebaan si u ordayaan dabeetana Garnacho loo tuuraya Garnacho kubaddi controlaya Garnacho yarkaasi wasna thaqiil weeyaan waa miisaanka culus mag u geli karaysid man to man Garnacho isma siin kartid waa aad buu fudud yahay cidlu kaaga tagaya dabeetana kubadda intuu yara macaaneeyo wuxuu sugayaayo uu doonayaa inuu mashquuliyo Wan-Bissaka markuu dhaafo ee ciyaartoydii daaficii Manchester mid kamid ah Wan-Bissaka isku kabeeyo ama uu isiraado xidho ayuu soo daba dhigaya Bruno muxuu sameeynaya underrated player kubadda nin laadaya la iska dhigaya wala saraya una adeer iyadoo loo geenayo kubadda Kobe Maino muxuu sameeynaya R2 jiha hoose ah ciyaar game-ku way garanayaan markaad R2 iyo shoot-ka iyo jiha hoose isla qabato ayuu saa ugu wareejinaya kubadii Thierry Henry oo kale kubadda horena tuuriyadeeda ku imanaysa Diego Dalot ayaa meel fog ka soo tuuraya dabeetana Gvardiol oo caawa aanay habeenkiisii ahayn oo waliba Garnacho offside ku jiri lahaa ayuu dabeetana isagu kubadda si salaxayaba muran bay gali leeyahay kubaddaas hadduu Garnacho si toos ah kubadda u qaato laakiin waxaaba de baaska siinayo assist-ka lahaaba Gvardiol oo kor marinaya gool wadaha Man City adeer buu Garnacho ku qabanaya Man United waa laga kubasareeyay haday noqoto ball position 27 maba la gaarsiiyay shoots haday noqoto inkastoo targetka ay Man United badnaydba oo 5-4 ay kala ahaayeen sidoo kale koornayaasha malaa 7-8 koorna heshay kooxda Man City halka Manchester United hal koorna heshay saasay tahay hadana koobka muhiima odaygii Don Carlo Ancelotti waxaad moodaa kooxdii Man City inuu tilmaamay Manchester City odaygaas way taxaan iridda ka xidho wixii control attack qaadana Ilaahay wuxuu kaaga calfad leeday sababtoo ah Manchester City kubad inaad la dheesho uguma geli kartid markaynu xaqiiqada inay iska dhatirin soo koox waliba tactically koobkeeda ku qaadayso way taqaanaa Guardiola horaan idinku sheegay haddii kubaddaasi ka soo xidhanto way adag tahay kubaddaas siduu u maareeya sanadkii dhaweydee imika Dokubabu ku yara baxbaxsadaaye Mahrezna waa kii iska diray Bernardo Silva garab toos ma noqon karo oo soo burburiyo ma noqon karayo runta fiican si kastaba waa la dhigay caawa waliba inta waxa ku sii raacda ninkii Rodri ahaa waa laga jabiyay scorekii 74 guulood oo ambitana isagoo markii hore Maldini ka jabiyay oo 73 ahaa noqdayna ciyaartoyga ugu badan ee unbeaten longest unbeaten haysta caawa Man United baa soo gabagabaysay waxaad moodaabeen finalada la isla eeganayo Argentina ayaa alxamdulillah hadii annaga ciyaar gruubisa ciyaartii Sacuudiga unbeaten laga jabiyay waa Leverkusen final baa laga jabiyay Rodrina waxa laga jabiyay finalkii championka FA Cup-ka mar kale Man City way ku khasaartay inay ku guuldareysteen inay twice qaado labada koob malaa 3 jeer bay samaysay Man United way ku guuleysatay FA Cup-ka inay qaado season-kana ku badbaadsato FA Cup-ka haddaba dhibaatadu xagga Chelsea bay haysatay caawa oo conference hall ka cararaysay habeenka ay guuleysato kooxda aad taageertaa muurku ku saxmaya habeenkaas oo dhan jawigaagu deganaanaya waliba waxaad oranaysaa ciyaartii labaadna meeday waabad u xiisoonaysaa inaad ciyaar labaad oo kala daawato wiiga dambe ama usbuuca dambe khaasatan markuu ku dhaliyo ciyaartoy uu dhibcaha ku qaaday iminka kooxdaad soo iibsato cusub ciyaartoyda inta badan Yurub markuu ciyaartoy weeriyahani koox soo wareego waxa la yiraahdaa muddo baahan yahay la qabsado 4 game hore 5 game hore waa loo dulqaataa laakiin ciyaartoy imka aad keentay markuu ciyaarta koobaadba ku shubo ee horyaalka taas waxa weeyaan saadaal wanaagsan iyo sansaan fiican weeyaan
waa xaaladda ay ku sugan tahay naadiga Man United caawa iyo waliba taageerayaashiisu. Sirkisi ayay daawadeen oo dib xasuus ugu celiyay Van Nistelrooy oo isaga laftiisu garoonka fadhiyay oo ahaa assistant coach ama caawiyaha Den Haag kaasoo ciyaartu markay dhamaatay waliba laabta geliyay Sirkisi ku darso oo isku wadanna waa ka soo jeedaan waa Netherlands ama Hollandiis labaduba. Van Nistelrooy, Filippo Inzaghi, Raul Blanco Gonzalez, Cruz, Julio Cruz Quinter, Crespo waxa lagu tilmaami jiray inay yihiin the last touch ama lamsal akhiira ciyaartoyda final touchka ugu jira garoonka ma soo gamgambin iyo waxaas shaqadooda inay la soo ordaan iyo Mayhayn. Van Nistelrooy Scholes oo soo tuur Gary Neville weekend David Beckham oo soo qaad kadib aniga igu hadlayay inay shabaqa baash soo taabato. ciyaartoyda takhasuska taa ku ahi kaliya waxay doonayaan in ay team boxka inaad ku siiso diilintaas 18 dhexdeeda kadibna aad adigu gool ka eegato. waxay dhalinayaan gool aanad adigu filaneyn. waxa soconaysa ciyaartoygani kubad ma yaqaano laakiin wuxuu ku dhalinayaa gool chance ahayn fursad aanad filaneyn inay fursad tahay ayaa shabaga laga soo dhex qaaday. waa goolka caawa Sirkisi dhaliyay uu soo qaatay kubadda wuxuu dhiibayaa baan u malaynayaa Casmirona Garnacho dhiibay Garnacho soo hormaray aad yar bala taabanaya waa la gujinaya waa la ogyahay inay galayso waa la iska sii dabaaldegay dabeetana. Sirkisi wariya the last touch ciyaartoygu markuu khatar ku yahay waa saas oo kale caawa Bruno bal hadda uu yara fiirso markuu ciyaaryahanku weeraryahan expert takhasuskiisu inuu gool dhalinta tahay. Bruno imsa gool buu la galay kubad baa la siinaya Casmiro laba kubadood siinaya oo khatara baas meel qurux badan uga saaray wariya Casmiro caawa. Casmiro season kan markuu lahaan diyaarsanay dadku iska kaftan bay moodayeen caawa kubadu dheelayay iyo baasasku dhiibiyay Casmiro bariyaha mayna ara Casmirahan Brian Casmiro ayuuna soo xasuusiyay waliba ka daran kubadahaas noocaas ma buu dhiibi jirinba ayuu loo dhiibay ninka Bruno la yiraahdo Bruno Trifelo mid isku dayay midna adigu labadii kubadoodba waa dayacay. laakiin Sirkisi hal chance oo uu helay oo waliba chance-ka isagu soo furfurtuu soo sameeyay 3 dhibcood iyo intii loo baahnaa oo ah natiijo uu ka gaaray. Man United caawa waxay soo bandhigtay 4 ciyaartoy ee u soo wareegay sanadkan oo Delict ka mid yahay Mazraoui iyo Sirkisi iyo Lena Yoro isagu dhaawac ku maqan. Talyaandheere yarkiisu isagu dhaawac buu caawa kaga maqnaa waynu daawan lahayn. 3 kale waynu daawanay Mazraoui waynu daawanay kubadiisu waa fadhidaa Delict isagana dawaabaynu garanaynaa si fiican inuu kooxda la qabsado baa muhiima. Erik ten Hag isagu bedelada mooyi wuxuu u jeeday anigu ilaa hadda ma garanayo isagoo gool raadinaya ayuu nimanka daafaca saaray oo saaray Maguire iyo Mazraoui uu keenay Delict iyo Evans oo malaynaya inuu shaxda bedelay oo 3 daafac oo qura ka dhigay iyo inta kale weerara garbaha weerarka daafici shaxdii Conti saasan moodayay inuu bedelay shaxda. si kastaba Bruno halkiisi markii loo soo celiyay si wanaagsan waa u shaqeeyay ninka lagu dhamaa Mason Mount caawa ka jiiftay sidoo kale ninka Rashford chance waa yaraysan sameeyay laakiin wali Rashford kii aan naqaanay waxaad moodaa inay baqa ku jira Rashford kubadda markuu qabsado oo kalsooni badan aanu lahayn baabad moodaysa Rashford ninkii Rashford ay wada kalsoonida ahay isku hor dhigan jiray daafaca bariyaha maynaan arag. si kastaba Sirkisi markuu soo galay waxaad arkaysay ciyaarta uu dhex warwareegay oo shaqadiisa ma ahayn inuu carcarro kulba kubadda intuu soo qabto ismoojiyo ma ahayn caawo dhan haduu aroor dilo 3 kubadood ku laadi 4 kubadood ku laadi laakiin aanu dhalin lahayn ciidamay soo hadal qaadeen iska dhex warwareego one touch one goal kubadii ugu horeeyay loo soo baasay intuu dhiibtay ayuu ku shubay goolka. taasina waxay muujinaysaa ciyaartoygu markuu weeraryahan yahay ugu jira garoonkan gool dhalin. daanigu uga sheekay dadka kale aanu Bologna ku soo daawaday horyaalka Talyaaniga ku daawan jiray waliba kooxdayda laga qaaday Sirkisi ay Milan ayaa rabtay oo lacag iyo mushahar waxaan la yiraahdo lacagtan la siiyo wakiilka taasay Milan isku diideen taasaana wakiilkay lacag siisay Man United saasaan ugu soo wareegay. Sirkisi aniga cidiga ma aqoon badna waa garanaya bidix iyo midig haduu taagto waa same ninkaasi waa daawan doontaan in badan horyaalka Ingiriiska hadalkayga meel ku qorta taasoo waliba tababarayaasha u fadhiya garoonkana ay yihiin niman ay isku wadan ka soo jeedaan oo talafteedu way caawinaysaa oo Den Haag iyo Van Nistelrooy oo laba Hollandiis ah talafteedu way caawinaysaa.
haddaad maqashay magaca Moorayaan iyo ninkaasi Isbaaro ayuu meel dhigtay waa ninka lagu raa Lisandro Martinez alla kubadu badbaadiye mar hadduu daafac kala ahaan la isku qaban la waa laga soo dhex qaadi la Lisandro Martinez ninkaas waa kawaan leh waa hilibleed moodaa baangad buu sitaa kaaga darane socodka markuu soconayo waxaad moodaysaa tirri ciyaar xaafa aha weligiiba xagga dambe ayuu caawa Isbaaro dhigtay inankii Adama Traore wan garanaa de xoogiisa mooyimala labada lugood kuma taagnee xoogiisa wad arkays wad garanaysaa waliba markuu saliidaysa soo marayo waa argagax saasay tahay haddana garab ayaa waxaan ku yiri aad moodaysay inuu tareen jiray markii garabka isku dhufteen Lisandro Martinez gaabnidiisan hamoodin ciyaal hamoodin Lisandro Martinez waa Moorayaan caadiya ninkaasi hadduu dhaawac daayo Manchester United wax badan buu qabanaya waa daafacyada weeraryahanada xanuujiya daafaca weeraryahanka xanuujiya waa daafacyada loogu jecel yahay kooxu ugu jecel yihiin inay haystaan Vidic baa saasoo kala ah Ferdinand iyo Vidic laba daafaco high quality baahan laakiin Vidic Ferdinand muxuu kaga fiicnaa Vidic wuxuu xanuujin jiray daafaca yaabistaan baa la mid ahaa Nasta la mid ahaa Maldini daafac وين بوهاي خبرت بدن أو محن كده هذاي ده لا يلعبوا جود كدافعية سنست مركي جرانك كوده تيران نينك ويريانو كبقن تيران نستوها ويو حنوتين تيري دافع شونتيريا كرفالو كان مركي سكاك ديلي تيران كرفالة دافع وحنوتين تيري كوح قستوين هي ستادنين دا ويرك حنوتيا روديجير أو كلا كريال مدريد منك نوع عاصو كلويان ليساندرو مارتينيز هدو داو عاسي دايو نمانكا كما هاوليرا runta idiisi sheegaya si kastaba 3 dhibcood ay qaateen Manchester United waanu hambaliyaan idin leeyahay taageerayaasha Man United ee halkan ku xidhan iyo kuwa page-kayga Facebook-gaba ku xidhan hambaliyaan idin leeyahay tareenka Manchester caawa Premier League u bilaabmay ee raacday halku ku dhamaan doono waynu u wada joogi doonaa Manchester United wax badan bay soo wadaa tareenkaasi stationka ugu dambeeya wuxuu istaagi doonaa bisha May 2025 sanadka soo socda haddii Allah uu dareena gaarsiiyo markaasaynu ogaan doonaa natiijada iyo ciyaartooyda la keenay iyo Man United baxaga u socoto si kastaba caawa guusha ay ku bilaabantay waanu hambaliyeenayaa taageerayaasha Manchester United adigoo wadada iska maraya ayaad Barcelona arkaysaa waad salaamaysaa shan qaado bay ku leedahay Barcelona dar Ilaahay baan idin salaameynay deedu ku soo saameydaan oran ha qaata shan kooxdi shan waxaan ahayn dhiibi mayso kooxdi Barcelona why not iyadoo 16 game Hansi Flick intuu kooxda watay 5 gool ay dhaliyeen 5 match imagine Xavi Hernandez 143 match uu watay 4 jeer oo kaliya 5 gool dhalisay Barcelona kana 16 game ay 5 gool dhalisay Barcelona argagax shantii match u dambeeyay 22 gool bay dhaliyeen ku darso waliba konton iyo 5 gool ayay marayaan 16 game Barcelona sanadkan waxay leedahay yaa istaajinaya hadii waliba yar la dheeshay waxa ku jira dhowr iyo konton ka gool ee dhalisay Bayern ee 4 u dhiibtay waa Sevilla oo 5 u dhiibtay waa Real Madrid oo 4 u dhiibtay waa kooxii waaweynaa kooxdii yareed ee caawa la ciyaarayeen Red Star Belgrade kubadba may taabanba Barcelona aynu naqaanay ayaa soo laabatay ee 2009 iyo 2011 kubadda u diidi jirtay yaryarka iyo waaweynkaba 50 gool 55 gool bay marayaan iminka 16 game hay kula tahay Kunde miisaanka culus hat-trick assist buu dhaliyay DJ-ga ciyaar looguma naanaysan ninka DJ Kunde caawa كرجوا هذا صار بولها كلبا هيس معان بو كتوري كلبا أسيستي بو بحني وحكم من نقد الدافع يدا ليبي أسيستي هاتريكا تشامبيون ليغا وأفريقيا ما بدنبا والله برشلونة وكوندو عاوا عيارتي ريد ستار ليبي يتشورد ألبا توتنهام لبدي كوني استديو طبانكي جواو كانسيلو وحنو مالينيا يسوق مركا برشلونة جوجين لبدي كوني كوبي لاتنكي كلا بروتش أيو ليبي سدو كلا أشرف حكيمي ayaa isaguna dhiibay ciyaar Atletico Madrid waa afarta daafacaaba laba waa Barcelona kubadooda saamaxaysa waa kubad ila daafacu aanay kaliya qaabilsanayn difaacaan balse ay baastamaan waa lagu yaqaan Barcelona iyo odayga Pep Guardiola kubadiisa Cancelo xilligaas City buu joogaan u maleynaya DJ Kunde caawa waa iskala bixiyay
Barcelona daafaceedu bandhig fiican bay soo wada bandhigeen. Inigo Martinez isagaaba man of the match-ka ciyaarta qaatay. Kubaarsi laftiisa 10 qodob baa la tolay isagoo Barcelona difaacaya, isagoo naadigiisa daafacanaya ayaa wuxuu leeyahay funaanada Barcelona dhiig waa ku bii karaa iga soo dareeray balse ceebi kuma bii karto, ceebka saliim buu ahaanayaa shaadhka Barcelona ama funaanada Barcelona. Sidoo kale Lamine Yamal oo isaga season-ka waa haysanaya yarkaasi. Clip kasta oo Barcelona aan ka duubo Lamine Yamal inaad ammaanto waa u qalmaa, weliba ka badan buu qalmaa. Yarka kalsoonida ka muuqata, kubaddu dhiibayo la jadiida taxta shams, wax cusub ma jiraan. waa sidii u dheelayay mustawihiisu performance-giisu waa sugan yahay, isma bedbedelo. ciyaar way ka jiiftaa, ciyaar maaha ciyaar kasta performance-giisu ama gool ha dhaliyo ama yuu dhalin ama ha caawiyo ama yuu caawin waa sugan yahay yarka. Leo gool oo isaguna boqolkii gool championka ku sii siqaya, kaasoo yiri taageerayaasha Barcelona waynaad u hadiyeysaa buu ugu yiri tababaruhu boqolka gool in markaad gaadho Champions League waa laba nin oo kaliya ka badan. waa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Leo gool waa machine goal weeyaan ninkaas, yeenan ilaawin ku darsa xisaabta labada nin oo kaliya Champions League ka badan. waa ninka saddexaad ee soo raaca Lewandowski. Rafinha kalcaada waa isaguna waa ku tuurtay tabtiisi waa u dheelaya. Barcelona iyo iskuuleedeedu casharay u dhigayaan kooxihii Yurub oo dhan, soo dabagalay way ku yiraahdeen subaxii casharkay soo dhigtaan, habeenkiina waxa u dhigaan kooxaha Yurub. Barcelona kubadeedu maxaan ku misaalay inay ka macaantay, aniga waxa igula macaan ee aan jecelahay waa hilibka geela oo la jarjaray, oo kuruskii la jarjaray, oo bahal duqus leeyahay ma geedo iyo lagu daray shignigi ama basbaashidniga, basbaaskan kulul lagu daray, oo basmati bariis basmati lagu goosanayo. inta ka macaan iminka kubadda Barcelona hatta adoon taageerin ayaad iska daawanaysaa. hambali reer Barcelona, congratulations, season-kan kubadaydan filaneyn ayaad haysaan. season-kan Barcelona marka season-kii hore la eego iyo ciyaartoy la'aantii marka ay dhaqaale darro awgeed ciyaartoy iibsan kari waayeen iyo 180 degree ay mar qura kala wareegtay Barcelona. imka way yaabayn taageerayaasha Barcelona waxana gool waxay waxana guuli waxay bay taagan yihiin, naga kala yareeyno ciidi madaafiicda hana laga daayo maxayga hana laga daayo Almino hadaan laga deeyna naga yareeyno. reer Barcelona imka waxaan leenahay Almino hadaydan goolasha joojinayn naga yareeyno. waa xilliyadeeni, waa saacadii rag waaweyn, waa xilliyadii kala miiranka likulli mujtahidin nasiib. Soomaaliduna waxay yiraahdaan dadaala xaaj Cabbaas uu gaadhaa wuuna dhaafaa. guul lama helo dhibaato la'aan haddaanad u dhididin. victory ama guul lama gaadho hadday noqoto World Cup wuxuu kula guuleystay qarankiisa Brazil. haddii ay noqoto Copa America wuxuu kula guuleystay qarankiisa Brazil. haddii ay noqoto Confederation Cup wuxuu kula guuleystay qarankiisa Brazil. haddii ay noqoto UEFA Champions League wuxuu kula guuleystay 2 jeer naadiga Milano. haddii ay noqoto Club World Cup wuxuu kula guuleystay Milan. sidoo kale UEFA Super Cup wuxuu kula guuleystay Milan. sidoo kale horyaal hadday noqoto iyo Copa Italia wuxuu kula guuleystay naadiga AC Milan. ciyaartoy kasta wuxuu ku hamiyo wuxuu kula guuleystay naadiga Milan iyo sidoo kale qarankiisa oo ah qaranka Brazil. waa ninku ku tilmaamay Samuel Eto'o iyo Ronaldinho xilligii ugu wanaagsanayeen Barcelona. haddii aanu dhaafno daafaca Nesta iyo Maldini iyo Yavi Stam oonu burburino daafaca adaga Milan, kubadda yaa noo dhaafinaya. Nelson Dida waa raggii kooxda AC Milano u soo yeelay magaca ay maanta leedahay. Nelson Dida haddii aanad aqoon baba kubadda cagta faraha ka qaad, shaqadaadii maaha. Nelson Dida wuxuu ka mid ahaa dinosaurskii kubadda cagta soo maray aan weliba xaqooda la siinin. intaas oo waqtiyana naadiga Milan iyo qarankiisaba upline-ka ahaan jiray. waa goalkeeper-ka ay ku challenge gareyn jirtay AC Milan Gigi Buffon. Juventus iyo Milan markay wada dheelayaan halkay dadka qaar ka daawadaan daafacooda adag, weeraryahanadooda xilligaas dadka qaar baa daawan jiray Zayfiska iyo kubadaha ay ka saarayaan ama ay badbaadinayaan Gigi Buffon iyo Nelson Dida. Nelson Dida haddii aad maqashay nin Higuita la oran jiray goolwadii Colombianka ahaa ee kubadda labada cirbood ee dambe sida ugu soo qaban jiray. Nelson Dida wuxuu ninka soo saaray skill-ka ah goolwada skill weliga miyaad aragtay. wuxuu soo saaray skill-ka ah kubadda marka
weeraryahanka ay kasoo dheeraato ee uu bogoskiisa ku dhex jiro intuu kasoo durko dhanka liidinta haddii ay gasho waa gool. wuxuu samayn jiray liidinta horteeda intuu istaago ayuu dabeetana kubadda labadiisa lugood markay weeraryahanka kasoo yaro horeyso mabuu ka laadi jirin manuu qaban jirin marmarka qaar labada lugood buu u sii deyn jiray kubaddu inay isaga lugihiisa dhex marto. markay dhex marto ayuu gadaal isugu tuuri jiray kubadda deetana qabsan jiray. Nelson Dida, one of dinosaurs, kubadda cagta soo maray haddase ka dabar go-ay waa raggii u soo godgalay naadiga Milano. waxaa kuugu filan ciyaartii bartaa dhabarka quraarada ololeysa lagaga dhuftay 2005 mar lagu dheelaya garoonka San Siro. sawirka caanka ah ee Marco Materazzi iyo Rui Costa ay isu haystaan badalka habeenkaasi wuxuu ahaa Nelson Dida, ninka marka ay kubadda dhaafin kari waayaan Inter Milano ay dabeetana marka dambe quraaradaha ololaya la dhacayaan isagoo ilaalinaya xaamil cariin bay carabtu tiraahdaa. libaaxu markuu keyntiisa iyo goobtiisa ilaashanayo cid uu ka baqaa ma jiro. iyadoo ciyaartooydii kaloo dhan ay ka yaaceen ayuu isagu diidanaa in goolka Milan quraaradii ay xataa gasho. taasaa dabeetana dhabarka lagaga dhufanayaa iyadoo ololeysa. xilligaas uu soo badbaadinayo garabka soo qabanayo saaxiibkii Cafu oo isku wadana ahaayeen oo in adeerkiya xilligaas oo Adnan Hamed Al-Hamadi oo ciyaarta mucallaqka ah oranayo Cafu yalcab dawr Van Dam. Cafu wuxuu ciyaarayaa booski Van Dam ninkii garanaya waa garanaya malaa yararkan dambe garan maayaane Van Dam iyo cirigtiisii markuu filimada actionka ama talayo kaasuu ku misaalaya inuu Cafu soo badbaadinayo saaxiibkii garabka soo qabanayo Nelson Dida. Pep Guardiola iyo Lionel Messi waxay isugu soo xamaasheen si aan ciyaartooy iyo tababar ay isugu soo xamaalan heer uu Guardiola yiri waxaan rabay inaan ka dhigo Lionel Messi ciyaartooyga ugu wanaagsan dunida bale anigu iga dhigay tababarihii dunida ugu wanaagsanaa. Guardiola, one of the best managers soo mara kubadda cagta, odhan maayo waa kii ugu wanaagsanaa sababtoo ah dad baan jeclayn kubaddan gaagaaban ee tiki-takada ah oo kubadaha kale tababarayaasha kale ay dheelaan xiiseeya. laakiin waxa biyo kama dhibcaana aanay cidina ku murmi karin inuu Guardiola yahay one of the best managers soo mara kubadda cagta. Guardiola haddaad maanta doonaysa inaad City ka soo kaxaysato sida tababarayaasha si fudud ugama soo kaxaysan kartid. waa inaad lacag bixisaa ilaa kontraadkiisu ka dhamaanayo. heshiiskiisa waxaa lagu jebinayaa sida ciyaartooyda loo jebiyo oo kale. waxaana taas sababay oo saamaxay xilligan kubadda la dheero tababarayaasha ayaa aad muhiim u ah sababtoo ah kubadda nimku waa system. waa kubadaad moodo programmed in ciyaartooyga la programiyay oo la yiri saasun ku dheer halka ka dhaqaaqin sidaas samee kubadda baas orod maxaan ku dhahdayay xilliga leedahay laad. waa intaasoo kaliya ninka daafaca weerar geli kara kubadda nimka ninka weerarkaaba daafac geli kara. skillskii baa ku yaraaday kubaddan hadda la joogo. wixii xirfadda la oran jiray oo dhan baa kubadda ku yaraaday waqtigan la joogo. xilligii hore laakiin tababarayaashu muhiim saas ma ahayn. ciyaartooyda ayaa aad muhiim u ah. waxa laga yaabaa garoon kasta inay 4-5 tababare gudaha ku jiraan ay dheelayaan. Philippe Scolari tababare hore qaranka Brazil iyo naadiga Chelsea ayaa wuxuu yiri ciyaar baan soo galay aan doonayay inaan safo u sheega tacliimaadka iyo taktiga ay ku dheelayaan qolka labisaada ee Brazil. waxaan ugu soo horeeyay buu yiri waa Adriano, waa Roberto Carlos, waa Arnautovic, waa Kaká. dabeetana dib waxaan isu weydiiyay malaa shaqadii saxda ahayd ma haysid. nimankan baad wuxuu sheegaysaa way macnihii malaa shaqadaadiiba maaha oo dib baan uga noqday buu yiri waar gala un baan yiri oo dheela shaxdii markaan u sheegay ciyaar baan ku wax taktiga xataa maan siin ayuu leeyahay markaa Philippe Scolari. Francisco oo kale Zidane iyo Deschamps iyo raggaasi dhexda ku joogaan tababaro uma baahan iyaga tababarayaala. imika waa kuwa dunida haystay tababarayaasha ah. marka kubaddan imika tii hore wada xirfad bay ahayd. rag tababarayaal garoonka ku jiray rag waxa ku jiray garoonka markay kubaddu tababaro shaxdu u soo dhigay ay socon weydo iyagu iskala bedela oo tu maskaxdooda ah dheela oo ciyaartooy oranaya isoo bedelo halkan ka dheer. Gerrard baan garanaya Milan iyo Liverpool finalkii 2005 wuxuu oranayaa tuugu tagaya wuxuu arkayaa Traore oo xogaa yara jilicsan Traore iyo Finan baa laha u taagnaa. wuxuu oranayaa dabeetana isaga tuug galaya markay baraajeeyaan tuugu ka soo xamaalaya. iyaga isdiri jiray kuwii hore kuwan imku laakiin wuxuu waa system waa ciyaartooy la programiyay dhinaca tababaraha ugama leexan karo. taas sababtay in imanka tababaro ahmiyad badan ku lahaado ciyaartooyga.
waayo waxoodiibaa wax ah cadood qaabkay u dheelayaan aad garanayso khiyaamo yar xataa kuma jirto habeenada qaar odhan mayso war kubadda noocani maxay ahayd midhmidh baa nagaga sii hadhay ciyaartooydii nooca ahaa badankoodii waa ka dabar go-een iyo wax iscasilay iyo wax iminka ay kasii dhantay baa jooga inta kale laakiin gebigooduba waa wax system waa ii dhiibaan kuu dhiibo carar orod waa keena hordaalo horxiiqa taasaa markaa sababtay in Guardiola maanta number 1 ama dunida tababarayaasha ay yaraadaan oo lacag badan lagu bixiyo tababaraha la siiyo 12 milyan baa laga yaabaa inuu qaato tababare waqtigan la joogo waqtiga hore 1 milyan iyo 2 milyan غير معقول بهان jirtay tababaraha la siiya laakiin marka danta ku kaliftay sababtoo ah meeshii ciyaartoy xirfad leh ma jiraan kaliya waxa weeyaan waa in tababaraha tagtay waa tababarayaashu soo kala taktiik fiican yihiin nimanka weeyaan Guardiola iyo Messi baan u soo noqday 2008 ayaa Barcelona shaxdeedu ma xumeyn ciyaartoy aad u wanaagsan bay haysay kuwi 2006 qaaday de waxa joogay Champions League Rijkaard baa sanadkaa watay Frank Rijkaard waxa dhacday dabeetana ciyaar Manchester ay reebaysa baa jirta sanadka Man United baa champion ka qaaday ciyaarta Manchester reebayso Champions League Barcelona dhexdoodu way fiicnaaday Xavi baa joogay Iniesta joogay Yaya Toure joogay Rafael Marquez oo marna daafac gala marna dhex gala oo waliba dhexda kaga sii fiican waa imka positionadii tabayso kooxda Barcelona Rafael Marquez kubadiisu millimeter baahid qarankiisa isagaaba free-kickada u laadan jiray Barca hatta free-kick waa u dhaliyo waa u laadi jiray Yaya Toure ta hoose through ballka ah ayuu isaguna ku dheereen jiray dhex fiican way haystay daafac way haystay weerar way haystay kadib ciyaarta Man United iyo Barcelona kubadda way ka haysanaysaa Man United maxaan ku dhahay Lionel Messi habeenka wuxuu sameeyay waxaynaan aragaynaan maqal wariya Efraintu halka u saarto ka dul qaadanaya Paul Scholes saasa lagu dhaafaya kaari ku baabinaya Nemanja Vidic u baabinaya saasay tahay hadana Manchester way fahamtay seer ku fahamsanayo saddex nin baa isu daba galay Efra markuu soo dhaafo Carrick baa haya Carrick hadduu soo dhaafo Nemanja Vidic baa haya de laba nin hadduu soo weedaarto ka saddexaad kubadda uu ka dilay isagoo dalaqlab soo galay moogtay goolka Guardiola markii uu qabsaday ciyaartaas si fiican buu soo daawaday waayo ciyaartii 2009 final champion bay isugu yimaadeen Lionel Messi ciyaarta Rijkaard garab buu ku xiray garabkaaga joog buu yiri Samuel Eto'o 9 buu ah la kala qariyay dabeetana kadibna wariya Ferdinand baa doono madax doonanayo weerarka galayay sababtoo ah Samuel Eto'o aad u dheereen xilliga iska wuxuu ahaa nin weyn dabeetana Guardiola wuxuu sameeyay ciyaartii 2009 saddexdoodii inuu isweydaariyo Lionel Messi uu 9 ku soo qoray garabka kalena Eto'o ku soo qoray garabkan kalena Henry baa saarnaa muxuu sameeyay dabeetana Guardiola ciyaartaas Lionel Messi oo 9 ku taagan yaa bixi kara daafaca tagi kara waakee waan midnaba maxay daafici iyo dhexdiba ilaalinayaan Lionel Messi way ogaayeen ya alla ya nafta inay kaga soo baxeen championkii hore 2008 kadib daafici wuxuba ilaa ninka sigiska wuxuu ilaalinaya Lionel Messi Samuel Eto'o garabkii la siiyay la fasaxaya waa ka garabka ka soo galaya goolka ka dhalinaya marka Samuel Eto'o Guardiola halka uu fahmaya wuxuu oranayaa Lionel Messi hadaad garabkii ku soo qorto waa maanta dhaa soo dalaqleeyo masaafada ku dheero markuu soo galo kubadii waa laga dilaya wuxuu yiri halkan ku taagnaado isaga ha ilaaliyaan Samuel Eto'o dabeetana ku shaqayso fiirso ciyaarta labada gool ay ka dhaliyaan midna Xavi baa caawinay midna Iniesta ee Samuel Eto'o garab buu ka soo galaya bartii Messi taagnaan lahaa buu ka dhalinaya ta dambe Messi dhalinaya madaxaana bartii Samuel Eto'o joog lahaa oo 9 buu habeenka ku qornaa ayuu ka dhalinaya kubadana Xavi baa malgacad aad moodo qaada sida ugu soo qaadaya Pep Guardiola aad buu maskax badan yahay problem kaliya haysta problemkiisu waxa weeyaan kubaddu markay soo xiranto xal ma helo koox badan baa ku reebay daafac adag ee kooxdu leedahay u ururta Guardiola sidoo u badiyaa way adagtay koox badan baa ku reebay Inter baa kamid ah 2010 Atletico Madrid baa kamid ah isagoo Bayern wata waxa kamid ah Chelsea waxa kamid ah seasonkii u dambeeyay Real Madrid ay u ururtay daafacan ka xiratay marka isagoo xal kale ma keeno hadii loo ururo way kubadiisu waa baas iyo gaagaaban iyo kolba garab u tuuro soo warwareego weeyaan hadii uu laakiin xal kale ku daro oo madaxyada ku dadaala haday soo xidhanto taasi uu sameeysto niman dhaxo kubadda shuuda uma ogolaado nimanka dhaxda inta badan kubadda inay shuudaan Thierry Henry oo ka sheekeynaya jiro xataa iyaga laftood markay dhexda joogan nimanka weerarkii waa inay taktiigiisa ku shaqeeyaan wuxuu oran jiray final third place ka marka la joogo waa ay bad xirtiin inta kale xirmatiin hadduu xalka yar ku daro Guardiola cidiba iska qabanayso ana taayid leh
Pep Guardiola. haddii aan ku weydiiyo waxaad sheegtaa ciyaartooyga keliya ee qaaday World Cup final man of the matchkiisa ama ciyaartooyga ugu fiicnaa finalka World Cup iyo Champions League finalkiisa man of the match iyo Euro saddexdaa koob ee waaweyn finaladooda man of the match qaaday waliba ku darsaday Copa del Rey final man of the match iyo Superka Europe man of the match rajulun nihaayat finaliska habeenada finalka soo xaadiri jiray haddaan su'aasha ku weydiiyo kaliya waxa ku soo baxaya Adon Iniesta Rassam Andres Iniesta haddii aad dhex kale kubadda cagta aad ag dhigto oo aan Zidane ahayn jariimad baad kubadda cagta ka gashay criminal case ayaad ka gashay kubadda cagta wallahi ma taageero hadlayo mana taageero kooxdiisa uu dheeli jiray Barcelona iyo qaranka Isbaanishka toona balse waxaan kuu sheegayaa Andres Iniesta inuu ahaa ciyaartooy dhammaan ka duwan dhaxaha dunida soo maray Zidane dabadii Andres Iniesta berigii hore kubadda cagta waxa lagu bixin jiray FIFA best player-ka oo ka qaalisanaa xilliga hore Ballon d'Or-ka way Ballon d'Or-ka inta badan halka xidiga Yurub ku jiro ayuu ku jiri jiray xilliga hore oo la gelin jiray in dambe Ballon d'Or-ku ka awood badatay FIFA best player-ka xidiga lagu tartami jiray wuxuu ahaa kay FIFA bixiso waayo Ballon d'Or-ka waxa bixisa France Football jariirad baa bixisa berigii hore Ballon d'Or-ka waxa lagu qaadi jiray ama xidiga adduunka ee FIFA best player-ka habeen adag ama habeenka ugu weyn ee kooxdu koob qaadayso oo ismuujiso sida Zidane oo kale 2002 World Cup ku kaga qaaday R9ku haddii aan World Cup ka R9 ku qaadi lahayn Zidane baa sanadka yeelan lahaa goolkii uu ka dhaliyay kooxda Leverkusen championka ay kaga qaadeen Hampden Park Glasgow Rangers goolkii nooca ahaa cala daa'ir habeenkaas oo kalu ismuujin jiray Zidane 1998 sanadkii xidiga adduunka iyo Ballon d'Or-ka bay isku darsanayay wuxuu finalkii buu si wanaagsan isku muujiyo Brazil buu laba ka dhalinaya oo de sanadka khatar ahayd habeenada finalka ayuu ismuujin jiray Andres Iniesta same habeenada finalka ayuu ismuujin jiray waxa tusaale kuugu filan inuu World Cup-ka markoodii koobaad qaranka Spain uu qaaday isagu Andres Iniesta habeenkii weyn garanayna goolka Holland ka dhaliyay Andres Iniesta Champions League 2015 man of the match ku qaaday Eurodii 2012 man of the match ku qaaday ii sheeg ciyaartooyga kubadda cagta dheela la Messi wala Cristiano wala waxa dhex taqaanaan oo dhan oo saddexda munaasabadood ee waaweyn man of the match qaaday 2003 Zidane baa qaaday FIFA best player-ka xidiga adduunka R9 iyo Thierry Henry baa la tartamaya Ronaldo mid buu ku oranayaa Carlos iyo Guti waan ilowsanay adaa iiga hiiliyay Zidane kubadda adaa soo tuuray Zidane sanadka xidiga adduunka ku qaaday kubadda bartanka laga soo tuuraya Zidane intuu hawada sidaa u galo baashiisa u control iyo dhulka soo dhigaya wariya habeen France inay la dheelayeen baan u malaynayaa kadibna habeenkii xidiga adduunka la siinayay ceremony-ga waxa lagu soo celcelinayay control ballkaas dabeetana inuu Carlos ay Guti mid buu ahaa ayuu oranaya adaa iga heliyay kula kubadda soo tuur soo iyagoo kaftamaya habeenkaas oo kaliya ayaa wariya xidiga adduun lagu qaadi jiray habeenkaas uu wacdara muujinaya Zizou habeenada loo baahan yahay ee kooxdu u baahan tahay ama qaranku u baahan yahay way kan buu oran jiray 2006 wuxuu soo bandhigay Talyaaniga iyo waxaan u jeedaa Faransiiska iyo Brazil waynu garanaynaa Brazil keligii baa la dheeliyay Andres Iniesta exactly lamid buu ahaa xaggaas Zizou ma oranayo Zizou heerkiisa uu gaarsiisay wali aniga Zizou baa heerkiisa igala sii sareeya balse Iniesta inaad cid compare garayso soo ag dhigto Zidane uu soo ag dhig kubadda ka ciyaarta Zizou oo kaliya soo ag dhig cid kale soo ag dhigin isku qaab ciyaareed xagga waliba garabka bidix bay labaduba fuuli jireen Iniesta bedelka Ronaldinho inta badan ahaan jiray garabka bidix buu fuuli jiray balse dhexdana ciyaartooy wax ka tarabuha oo intii dambe dhexbaaba loo soo celiyay shaxda markay 4-3-3 tahay markaana garabka saddexda dhexe dhinaca bidix buu fuuli jiray waa ciyaartooyda kaliya sameyn jiray Barcelona markay dheelayso inay khalq tafawuq al-adadi baa la yiraahdaa ama superiority numerical superiority wuxuu abuurayaa inuu ciyaartooygani wuxuu sameeynaya inuu ka macni wuxuu tusayaa kooxda kale wuxuu ku tusayaa kooxda kale inaad ka badan tahay oo kale
Iniesta waa ninkay dheereed Barcelona xilliyadii ay gumaysan jirtay Yurub waa ninkii cid walba dheereed markay soo adkaato xataa meelaha Messi geli kari waayo wuu isku dhex tuuri jiray Iniesta uu geli jiray saasay tahay adigoo kubadda dribble-kiisa iska ilaalinaya haddana baasiskiisu qeyr macquul bay haayeen waa ninka kaliya ciyaartooy kaliya jaayisada cerebral la jaayisada caqliga la siiyay Andres Iniesta qaab ciyaareedkiisa Andres Iniesta kubadda inaad ka qaadaa waa habeenkii xalay ahaayo tagay markuu cagta ku hayo aad bay u adagtay inaad kubadda ka qaado kubad dheer hadday noqoto kubad hoosoo dheer hadday noqoto baas gaaban hadday noqoto intaba Andres Iniesta perfect buu ku ahaa underrated player buu ku ahaa master pass buu ku ahaa Andres Iniesta waa habeenka loo baahan yahay ninka la arki jiray buu ahaa qaranka iyo naadigaba taa waxa kuugu filan inuu yahay ciyaartooyga kaliya ee saddexda final saddexdaba man of the match qaatay ku darso xisaabta qaar baarnay Ballon d'Or muu qaadin Ballon d'Or saxaafad baa bixisa waa ciyaartooyga kaliya ma taqaana ay tiri waanu qaldanay inaanu Iniesta siin weyne 2010 Ballon d'Orka ma soo taqaana World Cup-kii sanadkii uu qaaday waliba Holland ka qaaday inay ka apologize 2018 sideed sano kadib ayay saxaafadda France Football ee bixisa Ballon d'Or page-keeda soo dhigeen Andres Iniesta waanu ka cudur daaranaynaa raali gelin baanu ka bixinaynaa inaanu siin weyne Ballon d'Or waa ciyaartooy cid waliba kula yaabtay sidoo Ballon d'Or u qaadan waayay Andres Iniesta wariya iyadoo xilligay ugu wanaagsanayeen Cristiano iyo Messi uu la tartamayo ayay ku qasbanaatay France Football inay apologize ka bixiso Andres Iniesta inay siin weyday Ballon d'Or daa doonto taageerada jeebka inoo yara geli Andres Iniesta anigu waxaan oran karayaa ciyaartooyga kaliyan agdhigi karayaa waxa weeyaan waa Zinedine Zidane Juan Román Riquelme laftiisu ma hawl yara André Pirlo ma hawl yara balse Iniesta fawqa al-jamii run hadda doonayso ciyaartooyga kaliya agdhigi karaysa waa Zinedine Zidane waxa taa kuugu daliila in Bernabeu intoo la kacay loo sacabiyay Andres Iniesta wariya ay taageerayaasha Bernabeu u sacabiyeen ciyaar classic ah waxa daliil kuugu ah in dhammaan markuu World Cup-ka Spain soo qaaday garoon walba looga kici jiray ciyaar kastu dheelayo oo loo sacabin jiray Andres Iniesta garoon kasto oo aan looga sacabin Isbaanishka kuma yaalo Andres Iniesta